بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعهد العتيق أرضي سودا وهذا هل كان مانتو waxaanu ka galeynaa darsi cusub oo la yiraahdo ciwaankiisuna yahay tilka wa amthilatuha. darsi hore inoo soo dhamaaday oo daaka wa amthilatuha ciwaankiisu ahaa. halkan marka waxaanu ka galeynaa darsiga ugu horeeyay oo ahaa tilka wa amthilatuha. daaka ya iska lahaa. daaka waxa lagu tilmaamaa lab baa lagu tilmaami jiray Soomaalian lab iyo wixii la halmaala ayaa lagu tilmaamaa. tilka maanta waxa iska leh dhadig iyo wixii la halmaala ayaa lagu tilmaami doonaa insha Allah. waxaanu ku jirnaa tilmaam fog, tilmaam dhow oo inoo soo dhamaatay. hagaag ama waxaan ku jirnaa si kala hadaan u dhigo asmaa'ul ishaara lil baciid ayaan ku jirnaa. hagaag darsigan hore ka bilaabaya tilka sitaratun ama sitarun labadu waad dhigi kartaa inaad lab ka dhigto ama dhadig aad ka dhigto. tilka sitaratun inaad tiraahdo ama aad tiraahdo tilka sitarun, hadaka sitarun inaad tiraahdo aan dhahay daka sitarun inaan dhahdo iyo tilka sitaratun inaan dhahdo labadu way ku banaan tahay. tilka sitaratun taasi waa daah weeye daahi daaqadaha lagu xiranay waa mariyadii marihii daaqada lagu daboolayay ama lagu daboolayay weey ama albaabka ama markaas meeshii loo baahan yahay in dadka la iska qariyo oo dadka la iska qariyo loogu talagalay in la isaga xijaabo dadka. hagaag tilka saxaabatun ama saxaabun laba waad dhigi kartaa. tilka saxaabatun baad dhigi kartaa ama waxaad dhigi kartaa daaka saxaabun. marnaba isku dayin inaad dhahdo tilka saxaabun, may daaka saxaabun de. hagaag taasi waa daruurtii waa la yaqaan cirka ku taalay Sooma. hagaag tilka sayyaratun taasi waa gaari. tilka sayyaratun taasi waa gaari. haye afka Soomaaliga gaari muxuu noo ahaa? labbu noo ahaa sax oo waxaan dhihi lahayn kaasi waa gaari. laakiin hadda maxaa ku qoran? taasi waa gaari ayaa ku qoran. waayo afka cariga dhankoodu dhadig buu ka yahay ogow. tilka saacatun taasi waa saacad. tilka saacatun taasi waa saacad. tilka samaacatun taasi waa sameecad ama dhago. tilka samaacatun taasi waa sameecad ama dhago. sameecad waa la yaqaan. sameecadii waxa way aroosyada la keenay oo muusiga laga shiday balaayada ama tii mootooyinka la saarayay nooci doonto ahaato. sameecadaha noocaas weeye ama kuwii masaajidda lagu xireeyay ha ahaato ama tii masaajidka adinka banaanka u soo saaraysa ha ahaato ayaa sameecad la yiraahdaa. noocyadaas baa la yiraahdaa. hagaag ama dhago dhagihii earphone-ka ahaa ee loo isticmaalay mobilada iyo loo isticmaalay laptop-ka iyo loo isticmaalay ayaa waxa la yiraahdaa markaas ayagana waad dhihi kartaa afka carabiga samaacatun. hagaag tilka saltatun taasi waa ansalaato. tilka saltatun taasi waa ansalaato. ansalaatadu waxa weeye waa cagaarka la cuno qayb kamida weeye aadna loo cuno cuntooyinkana lagu cunaa. basal baa lagu jarjaraa, yaanya lagu jarjaraa, waxa lagu daraa wixii kale marka loo baahan yahay kalluun ama malay baa lagu daadiyaa, lindhanaan baa lagu dhiijiyaa, cusb baa lagu daraa, bariiski baastada lagu cunaa. hagaag tilka sayyaratu ujra. tilka sayyaratu ujra taasi waa rakaab ama dhaweeye taxi weeye. waxaan ka hadlaynaa waa taxiga yaa. tilka sayyaratu ujra waa waxay Soomaalidu taxi u yaqaanaan laakiin taxi waa eray af English. af Englishna wax naga galan male maadaama aan Soomaali nahay waa in af Soomaali aan raadsano. haddaan weynana waa inaan dhanka diinteena iyo dhanka carabiyada aan ka raadsano. hadaba marka rakaab waa eray af Carabi ah, dhaweeyana waa eray Soomaali ah. baabuurta maanta ka shaqeysa magaalooyinkana waxa loo yaqaanaa rakaab iyo dhaweeya loo yaqaana. ayagaan marka magacaana ka koobiyay isagaana qiimo badan. hagaag tilka safiinatun taasi waa doon ama dooni. dad baa dooni u yaqaana. tilka safiinatun taasi waa doon. waa doontii caadiga ahayd oo yareed. markabka iyo doontu labay kala tahay. doonta markasta markabka ka yar. hagaag tilka sixliyatun taasi waa xamaarato. tilka sixliyatun taasi waa xamaarato. wax kastoo xabadka ku socda oo halaq ma taqaan. halaqa waxa la yiraahdaa waa bulaca iyo maska iyo dabaqalooca iyo farabadnaha iyo waxyaabaha noocaas oo dhan oo dhulka ku socdo cayaanka yarka ayaa halaq loo yaqaan. marka wax kasto halaq oo xabadka ku socda sixliyatun dheh. tilka saburatun taasi waa saburad. tilka saburatun taasi waa saburad. saburadii wax lagu dhigi jiray way ama marka alwaaxa ka samaysnaato iyo safiito ama marka derbiha ka samaysnaato ama marka ha noqoto noocyadan birta hadda ka samaysano qalinka lagu qoro. nooci jeestada iyo nooci qalinka waxa la yiraahdaa saburatun ayaa la yiraahdaa. hagaag درسيga inta buu ku egyahay. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. إلهي دين بركايو. درسيgan haduu hadda kugu horeeyo oo YouTube kan hadda kugu horeeyo 10 kan oo warqad ah ama PDF ah muuqaal kan commentigiisa u horeeya ayaad ka fiirin kartaa oo ka helaysaa insha Allah. subscribe si macadka qaybtiisa Telegram-ka ah iyo qaybta YouTube-ka ah. comment baxso like nasaar insha Allah soo dhawo saaxiibadaada gaarsii. الدال على الخير كفاعله.
ومعهد العتيق لتعليم اللغة العربية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.